kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba asxaabtaan u jecelnahay ee hawada naga daawatay meel kastoo aad caalamka ka joogtaan oo muuqayaga iyo maqalkiyagu idinka soo gaarayo daawadayaal waxa la soo gaaray intii aanu hawada idin soo marin jirnay barnaamijkeega xiisaha gaarka xambaarsanaa ee wargeysadii iyo waxyaabaha ay qoraan oo idinkaga imanaya xarunta dhexe ee Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa waxana barnaamijkeedin la socodsiinaysa sidoo kalena isku soo dubariday anigoo sagal beel deeqa alaaba barnaamijkeegani waxaanu ku soo qaadanaa warbixinaha xiisaha leh ee ay daabacaan wargeysyada iyo shabakadaha ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo waliba kuwa ka soo baxa caalamka intiisa kale watahay daawadayaal hadii aan soo qabto warbixinta ugu horeysa ee barnaamijkeena wargeysadii waxyaabaha ay qoraan waa warbixin cajiib ah taasi oo tilmaamaysa qaar kamid ah nimanka u dhashay wadankaasi Hindiya oo soo bandhigay banaanbixi adduunka ugu la yaabka badnaa talo maxaa uu ku noqday kii adduunka ugu la yaabka badnaa balaynu ka wada bogano tobanaan kamid ah ragga ku dhaqan wadankaasi Hindiya gobol kamid ah ayaa sameeyay banaanbax noociisu ku cusub yahay dunida kaasi oo ay haweenkooda u dirayaan baaq la xiriira doorashada ku soo fool leh gobolkooda iyo musharaxiinta ay doonayaan in ay u codeeyaan dibadbaxayaashani reer Hindiya oo dhamaantoodba ah rag isla markaasina soconaya wadada iyo sidoo kale jidadka waaweyn ayagoo sita boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay hablaha gobolkaasi ugu baaqayaan in ay u codeeyaan musharaxiinta qaarkood ay taageersan yihiin si ay u guursadaan isla markaasina ay ugu deeqaan naftooda iyo inay noqdaan sayga nolosha la wadaagaya haweeneyda u codeysa musharaxa ay doonayaan gobolka ay dhacdadani ka dhacday oo lagu magacaabo Haryana ayaa kamid ah gobolada dalkaasi Hindiya ee ugu la yaabka badan gaar ahaan dhinaca tirada ragga iyo haweenka oo faraq weyn u dhaxeeyo sida la sheegay waxa gobolkaasi uu kamid yahay gobolada haweenku 4 jeer ay ku soo laabmayaan ragga sida warbixintii ugu dambeysay ee laga diyaariyay faraqa u dhaxeeya haweenka iyo raggu ee ku dhaqan gobolkaasi ayaa muujinaysa in 8 dumar ahba uu ku soo beegmayo hal nin oo kaliya wana sababta keentay in raggu ay guurka dumarkooda shuruud uga dhigaan inay u codeeyaan ama ay codka siiyaan musharaxa ay doonayaan halku dhigyada ay siteen dibadbaxayaashani reer Hindiya ayaa waxa kamid ahaa gabadh kasta oo guurka doonaysa waxay shuruud ku ah inay u codeyso musharaxa ay doonayaan qofka ninka ah ay nolosha la wadaagayaan hadii aad u codeysid musharaxayga waxaan kuugu deeqayaa inaynu isguursano isla markaasina noqdo saygaaga aad noloshaada la wadaagaysid wahagaag daawadayaal waan filayaa warbixintaasi xiisaha leh inaad ka wada bogateen isla markaasina aad ka wada hesheen hadii intaasi aynu kaga soo noqono waxa imika gacantayda ku jirta warbixin kale oo la yaab leh taasi oo tilmaamaysa faras ku dul baroortay ninkii dhaqday meydkiisa warbixintaasi waxa wax ka qoray wargeyska saxafi oo ka soo baxa magaalada Hargeysa bal sida uu faraskaasi u baroortayna aynu ka wada bogano inkasta oo dadka badankoodu ay xayawaanka ka aaminsan yihiin waxaan garaad iyo sidoo kale garasho lahayn laakiinse waxa aragtidaasi beeniyay faras ku nool dalkaasi Brazil kaasi oo dareemay dhimashada saaxiibkiisii dhaqday oo aaskiisa loo tubnaa la isuna diyaarinayay sidii loo macasalaameyn lahaa isla markaasina xabaasha loogu ridi lahaa faraskani ayaa yimid goobta la dhigay naxashka meydkii ninkii dhaqday uu ku jiray waxaana isaga oo murugaysan uu dul tagay naxashka kaasi oo si aan waxba ka duwanayn sida eheladiisa ninkani dhintay ay ugu ooyayeen inta uu goobtaasi yimi murugaysnaa
sheekadani oo sida ay jariirada Daily Mirror ee wadankaasi Ingiriiska ka soo baxday ay ku warantay ka dhacday magaalada Barbis ee wadankaasi Brazil halkaasi oo uu ku dhintay ninkani dhaqday faraskani oo lagu magacaabi jiray Winner da'diisuna ay ahayd 34 jir ninkaasi ayaa si caadiya u dhintay kadib markii eheladiisu ay isu diyaarinayeen aaskiisa iyo si nabadgelyeyntiisa hase yeeshee waxa meesha si degdeg u yimi martii aan loogu talagelin isla markaasina aan lagu casuumin kaasi oo ah faraska lagu magacaabo Sinora run ahaantii waxa uu ahaa mid xishood badan oo sanqar tiranaya isla markaasina si ay yara goobtaasi u soo galaya waxaana isagoo tallaabo degdeg ah u qaadaya dul tagay naxashka meydkii saaxiibkiisii kaasi oo sidii waxa la hadlayo oo kale madaxa raariciyay kadibna dareen muruga leh ay mar qura xaaladiisu isku bedeshay ilaa uu ka ilmeeyay oo indhihiisa oo dhan ilma qarisay faraskani ayaa sida wariyada warbixintani diyaarinaysay ay sheegtay u muuqday mid dhab ahaantii u dareemaya waxa dhacay gaar ahaan saaxiibkiisa geeriyooday iyo inay dhamaatay saaxiibtinimadii u dhaxaysay isaga iyo ninkii dhaqday faraskani Sinero lagu magacaabi jiray ayaa laga dheehan karayay in uu si buuxda uga murugoonayo xaaladda degdega ee soo wajahday iyo sidii ninkii saaxiibkiisa ahaa ay u kala tageen ee aanay mar dambe isu arki doonin waxaana faraskani uu rumaystay in lagama maarmaan ay tahay inuu tago goobta lagu macasalaamaynayo saaxiibkiisii geeriyooday waana sababta isagoo oo aan arkaynin meydka saaxiibkii oo naxashku ku wada dadan yahay isla markaasina uu daboolan yahay haddana waxay dadkii aaska ku sugnaa oo dhami ku wada qanceen in faraskani xaaladda oo dhan uu ka wada warhayo isla markaasina uu ka warwarsan yahay geeridanay soo foosaartay wixii maanta ka dambeeyana aanay is arki doonin saaxiibkii run ahaantii waxay ahayd xaalad dadkii geeridaasi ku sugnaa oo dhan dareenkooda bedeshay si weyna u taabatay qof walba oo goobtaasi joogay waxaana jira dad ku andacoonaya in ninka geeriyooday ee meydka ah uu ahaa qof farakaysan halka qaar kalena ay ku andacoonayaan in farasku uu yahay xayawaan caqli badan isla markaasina aaminsan saaxiibtinimada kana xumaa waxa ku dhacay saaxiibkiisii isaga dhaqday waa tahay daawadayaal haddii warbixintaasina aynu intaas kaga soo laabano iminka waxaa gacantayda ku jirta warbixin cajiib ah taasi oo tilmaamaysa dood aad u la yaab leh oo ka dhalatay mashruuc ay bilaabeen haweenka wadankaasi Masar oo salka ku haya in raggu ay guursan karaan 4 xaas warbixintaasi mar kale waxa wax ka qoray wargeyska Saxafi waxa wali degila caro hinaasa keenay oo ka dhalatay olole dhawaan dalkaasi Masar ay ka bilaabeen koox dumar ah oo u dhashay dalkaasi oo fasaxaya in raggu dumar badan ay guursadaan ololahani oo ay dumarka waday ku tilmaameen inuu yahay mid lagula dagaalamayo guur la'aanta dumarka dalkaasi ku soo badanaysa ayaga oo ka duulaya diinta islaamka iyo sida ay ragga ugu ogolaanayso inay 4 xaas guursadaan waxa hal ku dhig looga dhigay saygaaga ayaa ah saygaaga boqol dumar ah oo xaasleeya ayaa ku doodaya in ragoodu ay u ogol yihiin inay guursadaan dumar fara badan si loo yareeyo guur la'aanta soo wajahday dumarka wadankaasi ololahani ayaa aad waxa looga dareemayaa baraha ay bulshadu ku kulanto ee internetka sida Facebook iyo Twitter-ka laakiinse waxa uu dhaliyay dood iyo muran tiro badan oo fikirro kala duwan la isku weydaarsanayo goobaha fagaarayaasha iyo sidoo kale goobaha kale ay bulshadu ku kulanto iyadoo dumarka qaar ay aaminsan yihiin in ragoodu ay kaliya taw fiican yihiin inay hal xaas guursadaan halka kuwa lahani wadaana ay doonayaan in nin kastaaba uu guursado 4 xaas dumarka iyagu fikirkaasi diidan ee bulshada fagaarayaasha kala hadlaya ayaa waxay sheegeen in ragga iminka dunida jooga aanay ku filnayn hal xaas wax ka badan isla markaasina aanay qaadi karin mas'uuliyadda 2 qoys ama 4 qoys iyagoo sheegay qaar kalena in dhaqaale ahaan aanay u saamaxay karin in dumarku ay ilaaliyaan isla markaasina ay noloshooda ku filaadaan ragga caruurta iyo sidoo kale dumarka faraha badan ee ay guursadeen
si kastaba ha ahaatee dumarka ololahani waday ayaa waxaa la sheegayaa inay ku guulaysteen in guryaha ay tagaan isla markaasina dumarka xaasileyda ay ku qanciyaan in ragoodu ay guursan karaan 4 dumar ah iyagoo ka duulaya gurlaanta soo food saartay hablaha wadankaasi Masar iyo sidoo kale sida diinta islaamku ay ninka ugu ogolaanayso inuu guursado 4 xaas qaar badan ayay ku qanciyeen halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen arrintaasi waxay dhalisay dood aad u tiro badan waxaana muddooyinku u dambeeyay baraha bulshada ee wadankaasi Masar qabsaday dooda la xidhiidha arrintani waa tahay daawadayaal warbixintaasina haddii intaasi aynu kaga soo noqono wadanka Sweden ayaa waxa laga dhisay bridge-ka ugu dheer adduunka sida ay ka faaloodeen warbaahinta wadankaasi ka soo baxda gaar ahaan wargeyska Sweden Times warbixintaasina aynu ka wada bogano dalka Sweden waxa laga hirgeliyay bridge-kii ugu dheeraa caalamka kaasi oo loogu talagalay socdaalka dadka sida lagu daabacay jariirada Sweden Times oo ka soo baxda dalkaasi isla markaasina uu ka soo xigtay wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa bridge-kani ayaa dhererkiisu gaadhaya ama bajoogiisu yahay ilaa 80 mitir oo ka sareeya dhulka waxaana lagu magacaabaa Charles ayadoo mashruucanina ay uu yahay kii ugu ballaadhnaa ee abi dawladda Sweden ay ku bixiso dhismayaasha dalkaasi ballaadhka bridge-kani ayaa gaadhaya 65 sentimitir iyadoo ay isku xidhayo magaalooyin badan oo dalkaasi ku yaala waxaana uu noqonayaa bridge-kii ugu dheeraa ee caalamka waqtigani aynu joogno waxaana lacagta ku baxday ay gaadhaysaa 730,000 oo lacagta wadankaasi Sweden iyadoo u dhiganta 750,000 oo dollarka Mareykanka waxaana tijaabadii ugu horeysay lagu sameeyay bridge-kani 29 bishii July ee sanadkan aynu ku guda jirno taasi oo sabab ka dhigtay in dad aad u tiro badan oo reer Sweden iyo sidoo kale dad kale oo ka yimi wadamo kala duwan ay bridge-kani u soo dalxiis tagaan waxaana uu bridge-kani noqday ka iminka ugu dheer caalamkani aynu dul saaranahay waa hagaag daawadayaal haddii warbixintaasina aynu intaasi kaga soo noqono iminka gacantayda waxaa ku jirta warbixin aad u xiiso badan taasi oo boggiisa dhexe ku qoray wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa waxaana uu ciwaan uga dhigay baalashlihii ugu dambeyntii noqday madaxweynaha cajiib talow sidee ayuu ku noqday aynu ka wada bogano warbixintaasina waxa uu ka dhashay qoys saboolaa waxaanay lahaayeen qol yar oo ay ka deganayeen xaafadda qoyskiisa oo fiqiir ahaa oo deganaa magaalada São Paulo ee ka tirsan wadankaasi Brazil waxaana uu ku badnaa xaafadooda dadka isticmaala maandooriyaasha hooyadii ayaa korinkiisa qayb weyn ka qaadatay waxaana uu qiray arrinkaasi isagoo yiri hooyaday waxay bartay sidii aan meel sare u gaari lahaa anigoo naftayda qadarinaya taasi oo sabab u noqotay in dad badan oo dunida ku noolna ay aniga ay qadariyaan wiilkan yari ayaa tacliinta waxa uu bilaabay isagoo da'yar laakiinse markii uu gaadhay fasalka 5aad ee dugsiga hoose dhexe ayuu joojiyay waxbarashadii sababtoo ah dhinaca dhaqaalaha ayaanay qoyskiisu ka caawin kareynin waqtigaasi ayuu ka bilaabay shaqada baalashle kabaha masaxa magaalada uu ka degan yahay dalkiisa isagoo shaqadaasina waday muddo waxa mar dambe uu shaqo ka helay kaalin shidaal waxaana uu wareegay darawal iyo inuu noqdo makaaniga gaariga hagaajiya oo uu bartay waxa kale uu ka ganacsan jiray khudaarta intaasi wixii ka dambeeyayna waxa uu ku biiray shaybaadhada macdanta lagu barto oo lagu magacaabo face matter waxaana uu ku jiray muddo 3 sanadooda markii ay daadiisu gaadhay 19 sano waxaa gooday fartiisa gacantiisa bidix isagoo ka shaqaynaya warshad daryeesha gaadiidka ninkaasi halgan nolosha ah soo galay waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee wadankaasi Brazil Master Silva sida uu horumarka noloshiisa ugu soo sameeyay iyo saboolnimadii baalashlaha ahayd iyo sidoo kale ilaa uu gaadhay heer madaxweyne markii uu ka dhamaaday waqtigii xukunka dalkaasi uu hayay shacabka iyo baarlamaanka dalkiisu waxay diideen in uu xilkaasi ka dago ayagoo codsanayay in wax laga bedelo shuruudaha dalkaasi si uu talada halkaasi uga sii hayo laakiinse taasi isaga ayaa diiday waxaan u go'aansaday in gebi ahaanba uu xilkaasi iskaga tago isla markaasina uu bedelo madaxweynaha cusub ee wadankaasi ay dooran doonaan
waa hagaag daawadayaal waan filayaa warbixintaasi ka faaloonaysay baalashlahaasi ugu dambeyntii madaxweynaha noqday iyo dadaalkaasi dheer oo uu soo galay inaad ka wada hesheen waxaanay tilmaamaysaa in qof kasta oo dadaal dheer sameeya uu maalin uun ku guuleysan doono aynu intaasi kaga soo laabano wargeyska dawan ayaa mar kale boggiisa dhexe waxa uu ku daabacay warbixin tilmaamaysa hotel ku yaala wadankaasi Mareykanka oo iibiya cuntooyinka noociisa ugu qaalisan ayaa gabi ahaanba cuntada hotelkaasi taala waxa laga dhigay mid bilaash ah oo aan wax lacag la bixinaynin bal sababta keentay aynu ka wada bogano dalka Mareykanka gobolka California waxa laga furay bishii October 20-keedii sanadkii 2006 hotel lagu magacaabo So All May Eat oo ah qof kastaaba waxbuu cuni karaa hotelkani ayaa waxa la sheegay inuu yahay mid aan doonaynin wax macaasha laakiin se doonaya in bulshada loo adeego hotelkani waxa magaciisa loo soo gaabiyay Som Cafe waxaana lagu maalgeliyay $30,000 Mareykanka lacagtaasina waxa bixiyay 2 nin oo u dhashay wadankaasi Mareykanka ayagoo sheegay in ay doonayaan inay muujiyaan sida ay ugu heelan yihiin danta guud hotelkani oo raashinkiisu yahay mid nafaqo iyo tayaba sareysa hotelada kale ee qaaliga ah haddana qof kastaaba oo yimaada lagama qaado wax lacaga waana bilaash gabi ahaanba wixii aad halkaasi ka cunaysay iyadoo waliba nooc kasta oo cunada ah laga helayo hotelkani magaciisa loo soo gaabiyay Som Cafe qof kastaaba waxa uu doonayo ayuu ka cunaa isagoo aan lacag bixinayn laakiin se waxa hotelkani shardi ah in qof kastaaba oo yimaada uu shaqeeyo daqiiqada yar oo bilaasha si uu dareemo in qofka loo caawiyo si iska waxaana yimaada dad kale oo iyagu aan doonayn inay wax ka cunaan balse soo dalbanaya in saacado bilaasha ay u shaqeeyaan hotelkani waa tahay daawadayaal waan filayaa warbixintaasi cajiibka ah ee ka waramaysay hotelkaasi gabi ahaanba cuntadii taalay ka dhigay mid lacag la'aan ah inaad ka wada hesheen haddii intaasi aynu kaga soo noqono mid kamid ah diyaaradaha laga leeyahay wadamada qaaradaasi Yurub ayaa duulimaadyadii magaalooyinka New York iyo London waxay ka dhigtay $68 oo kaliya taasi oo noqday duulimaadkii adduunka ugu jabnaa warbixintaasi waxa qoray wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa wadankaasi Ingiriiska aynu ka wada bogano mid kamid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu ballaaran qaaradaasi Yurub ayaa qiimo dhimistii ugu weynay dunida ku samaysay macaamiisheeda waxaanay shirkadani Norwegian Airlines ay 65 jeer hoos u dhigtay qiimaha ay ku iibin jirtay tigidhada duulimaadyada London ilaa New York sida wakaaladaha wararka ee dunida ay ku waramayaan shirkadani ayaa $68 oo kaliya ka dhigtay qiimaha tigidhadeeda London ilaa New York halka ay caadiyan ahayd $600 shirkadani ayaa waxay sheegtay in macaamiisheeda ay u sameyn doonto abaalmarintii ugu sareysay sida shirkadu ay sheegtay qof kastaaba oo ka mid noqda dadka fursadani ka faa'iideystay isla markaasina duulimaadyada New York iyo sidoo kale London ee shirkadani qiimo dhimista jaban ay ku sameysay ka faa'iideystay waxa lagu soo riyeyn doonaa soo dhaweyntii ugu heerka sareysay ee abid ay sameeyso shirkad diyaaradeed iyadoo qof kastaaba la taagi doono qiimaha ugu sareeya taasi oo laga siman yahay dhammaan rakaabka kala duwan ee diyaaradani shirkadu ay leedahay raacay qaar badan oo kamid ah dadkii fursadaasi u helay duulimaadkii fasaxyada sanadkii cusba iyo sidoo kale ciidii Kiristaanka ay saacado raaxa leh ku qaatay diyaaradaasi iyo duulimaadkeeda ay ugu kala gooshaysay magaalooyinka London iyo sidoo kale New York waxa kale oo ay heleen macaashaad u tiro badan iyadoo ay u badbaaday 66% jeer lacag fara badan oo ay ugu tala galeen inay tigidhada ku iibsadaan isla markaasina ay ugu duulaan magaalooyinka New York iyo London waxaana tallaabadani shirkadu ay qaaday noqotay qiimo dhimistii abid ugu ballaadhnayd ee shirkad diyaaradeed ay samayso iyadoo dad badan ay ku tilmaameen duulimaadkii bilaashka aan waxba ka dhacaynin waa tahay daawadayaasheeda kala duwan ee daafaha caalamka nagala xidhiidha ee aanu jecelnahay ee imika nagu soo biirayo waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeegii wargeysadii iyo waxyaabaha qoraan oo idinkaga imanaya xarunta dhexe ee Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa haddii aan soo qabto warbixinta imika gacantayda ku jirta waxay tilmaamaysaa oday u dhashay wadankaasi Mareykanka oo ku dardaarmay marka uu geeriyoodo in gaadhigiisa lala aaso oo taasi loo fuliyay balaynu ka wada bogano warbixintaasi cajiibka ahna arrimo la yaab leh ayaa mar walba ka dhaca dunidani aynu ku noolnahay kuwaasi oo marar badan
kusoo noqnoqda dadka maqla amaba kuwa goobjooga ka ahaa sida dhowaan ka dhacday dalkaasi Mareykanka kadib markii oday ahaa oo deegaanka waqooyi ee gobolka California ku noolaa uu ku dardarmay in marka uu dhinto lala aaso gaadhigiisa iyo sidoo kale hub fara badan oo haystay. Odaygani oo magaciisa aan la shaacin ayaa warbaahintu soo warisay dhimashadiisa iyo sida dardaarankiisii la yaabka lahaa loogu fuliyay kadib markii dhowr cisho ka hor uu geeriyooday kadibna xabaal weyn oo isaga iyo gaadhigiisa wada qaadaysa loo qoday. Odaygani oo dhintay isaga oo daadiisu ay tahay 90 jir waxa uu ku dardaarmay in marka uu dhinto lagu dhaxrido gaadhigiisa uu lahaa kadibna maydkiisa la fadhiisiyo kursiga wadaha hubka kala duwan ee uu leeyahayna la fadhiisiyo kursiga hore ee rakaabka. gaadhigani uu ku dardaarmay in lala aaso ayaa waxa noociisa lagu sheegay Alberta Model 1973 waxaana meydkiisa lagu riday sidii uu ku dardaarmay kursiga darawalkana waa la fadhiisiyay hubkii kala duwanaa ee uu lahaana waxa la geeyay kursiga kale ee darawalka waxaana hubkiisii lagu taxay dhinacyada meydkiisa. qaar ka mid ah eheladiisa oo la weydiiyay sababta odaygani ugu dardaarmay in gaadhigiisa iyo hubkiisa lala wada aaso ayaa ka gaabsaday in ay wax tafaasiil ka bixiyaan laakiinse mid ka mid ah dadka asxaabtiisa ee meesha joogay isla markaasina ka soo qayb galay xabaasha dusheedana warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dardaarankiisu uu la xiriiray waxyaabo waaminsanaa oo rumaysnaa in haddii hubkiisaasi lala aaso ay suuragal tahay inuu iskaga difaaco waxyaabahaasi uu aaminsan yahay in qabriga gudihiisa ay ugu iman karaan marka la aaso. goobtii xabaasha looga qoday odaygani ayaa noqotay meel si weyn u soo jiidata warbaahinta isla markaasina sababtay in dadaadu tiro badani ay yimaadaan goobtaasi si ay u daawadaan ayaga oo siyaabo kala duwanna dhacdadani u soo jiidatay. waxaana la arkayaa sawirro iyo muuqaallo laga soo baahiyay dad tiro badan oo sawirro ka qaadayay gaadhigani uu ku dhex jiray meydka odaygani iyo sidoo kale hubkiisii. warbaahinta ayaa askani ku tilmaamtay kii ugu la yaabka badnaa dadkii ugu badnaana ay ka soo qayb galeen ayaga oo sababo kala duwan waxaana meydka odaygani iyo gaadhiga alaabtiisu ay ku dhex jirtayba loogu riday xabaal weyn oo loo adeegsaday markii la qaadayayna wiishka lagu qaado alaabooyinka culculus kadibna markaasi ayaa muraayadaha loo dallacay waxaana lagu rogay ciidda markii loo qoday xabaal weyn oo dhowr mitir gaadhaysa taasi oo lagu aasi lahaa dhowr qof sida ay baahiyeen wariyaasha shabakada wararka ee CNN. waa tahay daawadayaal warbixintaasi cajiibka ahayd ee tilmaamaysay ninkaasi geeriyooday ee lagu aasay gaadhigiisa. haddii intaasi aynu kaga soo noqono ninka ugu caruurta badan wadankaasi Pakistan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo caruur kale oo aad u tiro badan. warbixintana waxa wax ka qoray oo ka faalooday wargeyska Geeska Afrika oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. nin u dhashay dalkaasi Pakistan oo 3 dumar ah guursaday kana dhalay 36 caruur ah ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in aanu wali gaadhin hadafkiisii oo uu ku taamayay sidii uu guursan lahaa 4 xaas isla markaasina uu uga dhali lahaa ubad gaadhaya 40 ilaa 50 haddii waqtigu ku simo. ninkani odayga ah oo lagu magacaabo Galaasar Khan waxa uu ku nool yahay guri weyn oo sida guryaha ay ku jiraan boqortooyadu oo kale ah kaasi ay ku nool yihiin boqolaal qof oo tafiirtiisa iyo sidoo kale 36 caruur ah ee uu dhalay isugu jira waxaana caruurta kale ee kula nool gurigani dhalay inamadiisa iyo hablihiisa. Master Khan oo ku nool gobolka qabiilku maamulo ee wadankaasi Pakistan ee Waziristan waxa uu sheegay in duruufaha ka jira gobolkiisa iyo sidoo kale colaadaha soo noqnoqday ee u dhaxeeya ciidamada iyo kooxaha Islaamiyiinta ah ee Taliban ay ka kala kiciyeen qorshihiisii uu muddada dheer ku taamayay ee ahaa inuu guursado 4 xaas isla markaasina uu ka dhalo caruur 40 waxaan u sheegay in riyadaasu ay colaadahaasi ka kala kiciyeen. qorshaha uu ku doonayo inuu ku guursado xaaskiisii afraad ayuu ku rabay inuu caruurta intani ka badan u dhalo haddii xagga alle
laga qoro sida uu warbaahinta uu sheegay waxa uu ku tala jiray in nubadkiisu 40 gaadho haddii uu ka badin karana uu ka badiyo ninkani oo ka qaxay gurigiisii weynaa ee uu deganaa waqtiganina qaxoonti ah ayaa isaga iyo tafiirtiisuba waxay joogaan magaalo jaarla ah deegaankoodii waxaanay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay halkani joogaan dhibaatana kuma hayso ninkani qaxoontiga ah ee gurigiisii ka soo qaxay balse waxa uu sheegay inay ka kala kicisay mid ka mid ah riyooyinkiisii oo adduunka ugu jeclaa taasi oo ahayd in xaaskiisa afraad uu guursado isla markaasina uu dhalo caruur ka badan 40 waxaana uu sheegay in lacagtii ku bixi lahayd arooskeeda gabadha afraad ay ku baxday qaxoontinimada iyo sidoo kale geedigan ay marba meel u guurayaan ninkani oo beeraley ah ayaa leh dhul beereed aad u weyn oo wax badan ka soo saaro kaasi oo lacagta ka soo baxdaana ay ku filan yihiin qoyskiisa 100 kor u dhaafaya ee gurigiisa ku nool iyadoo mararka qaar marka uu suuqa beeruhu fiican yahayna lacagta ka soo gasha ay aad u badan tahay isla markaasina marka ay noloshooda ku kafeeyaan ay in badani u soo hadho hagaag daawadayaal waan filayaa warbixintaasi inaad ka wada bogateen haddii intaasi aynu kaga soo noqono wadanka Japan ayaa waxa la sheegay inay kor u sii kacayaan muslimiinta wadankaasi waxaana taasi bedelkeeda wadankaasi laga dhisay masaajid aad u tiro badan wargeyska geeska Afrika ayaa warbixintaasi bogiisa dhexe ku daabacay warbaahinta dalka Japan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka waramaysay tirada sida weyn u sii kordhaysay muslimiinta dalkaasi kuwaas oo sida wararku sheegayaan 85% ka mid ah ay yihiin muwaadiniinta dhaladka ee dalkaasi warbaahinta ayaa warbixino kala duwan ka diyaarisay kuwaas oo u badnaa waraysiyo laga qaaday dadka dhowrkii sanadood ee u dambeeyay qaatay diinta islaamka iyo kuwa muddada dheer muslimiinta ahaa waxaana wararku sheegayaan in 5% ay dhawaan muslimiinta dalkaasi ay ka noqon doonaan tirada guud ee ku dhaqan dalkaasi Japan haddaba iyadoo laga duulayo tirada xad dhaafka ah ee dadka muslimiinta ee Japan ayaa maamulka caasimadda dalkaasi Japan ee Tokyo ku dhawaaqay hirgelinta suuq weyn oo islaami ah kaasi oo laga hirgelin doono goobihii dalxiis ee ugu quruxda badnaa dalkaasi iyo deegaankaasi suuqan ayaa laga hirgelin doonaa masaajidkii ugu weynaa ee dalkaasi waxa kale oo injineerada Japanese-ka ay dhisi doonaan goobo la jaan qaadi doona xaaladda dadka muslimiinta ah dalxiisayaasha iyo kuwa soo booqda waxa kale oo ay dhisi doonaan suuq lagu iibiyo cuntada xalaasha degmadan cusub ee dalkaasi Japan laga dhisay ayaa lagu magacaabaa Broad Friend of Muslims taasi oo noqon doonta tii ugu horeysay nooceeda ah ee laga dhiso dunida taasi oo ay si gaar ah diiradda u saarayaan injineerada Japanese-ka ah iyo maamulka gobolkaasi ee hirgelinaya mas'uuliyiinta sarsare ee dalkaasi Japan ayaa dadka ku dhaqan dalkaasi iyo shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ugu baaqay in ay fahmaan waxyaabaha ay muslimiintu jecel yihiin ee soo jiidashada leh waxa kale oo ay rajeynayaan in suuqani uu isku xidho dunida islaamka iyo dalxiisayaasha gudoomiyaha gobolka Toshiba ee dalkaasi Japan oo lagu magacaabo Chief Tanka ayaa sheegay in haddii shirkadaha waaweyn ee gobolkaasi ku yaala inay hirgeliyaan mashruucan uu kana qayb qaataan gudoomiyaha ayaa ku baaqay in masjidkii ugu weynaa dalkaasi laga hirgeliyo isla markaana la sameeyo suuqiyo deegaano qalmo muslimiinta waa tahay daawadayaal warbixintaana waa filayaa inaad ka wada hesheen haddii intaasi aynu kaga soo noqono wakaalada hawada sare u qaabilsan wadankaasi Mareykanka ee lagu magacaabo NASA ayaa waxa la sheegay in arrin la yaab leh ay kala kulantay meeraha loo yaqaano Maris bal warbixintaana aynu ka wada bogano meeraha cas ama Maris oo ah meeraha kooxaha sahminta hawada sare ku hawlan sida weyn ugu mashquulsanaayeen sanadihii ugu dambeeyay waxa dadaal badan dunida gaar ahaan dalka Mareykanku ah hay'adaha u qaabilsan sahminta hawada sare ku bixisay $10 milyan sidii loo daahfuri lahaa wax badanna looga ogaan lahaa meerahaasi iyo sida ay nolol uga suura gali karto haddaba toddobaadkii ugu dambeeyay waxa si weyn isku bedeshay aragtidii hore ee laga aaminsanaa meerahaasi kadib markii si kadis ay kameraduhu u qabteen ilaa iska baxaya kolba meel ilayskaasi oo mararka qaar koodna meel dhow laga arki karayay marmarna fogaanayay taasoo aad ugu mashquulisay
kooxaha ku howlan saaminta beerahaasi. mishiinka baarista ka sameynaya beerahaasi Maris oo hawshaasi ku guda jiray tan iyo sanadkii 2012 waxa uu toddobaadkii dhaweyd soo diray sawirro muujinaya shay nool oo dhammaantii ifaya ama nuur ka wada baxayo. marka sawiradaasi oo dhowr nooc ahaa isla markaasina kamaradaha dhinaca bidix iyo xagga hore kaga rakiban mishiinkaasi ay qabteen shaygaasi ifaya ee nuur kale oo meel fog ka baxaya barbarna meel dhow noqonaya ayaa si weyn loogu kala qaybsamay. tusaale ahaan barta internetka ee arrimaha hawada sare ka faalloota ee loo yaqaano American Space oo iyadu si weyn u buubuurisay muuqaalkani ayaa ku tilmaamtay bakhtiyaar nasiibkii ugu weynaa ee NASA iyo Mareykankuba ka soo hooyaan saaminta beerahaasi Maris. shabakadan oo marar kala duwan ka faallootay si weynna wax uga qortay suxuunta dusha waxa loo yaqaano ayaa ilayskan lagu arkay beerahaasi Maris ku tilmaantay nolol smart ah oo ka jirta beerahaasi, taasoo shabakadu ku doonayso in ay hore uga saadaalisay in beerahaasi mustaqbalka noqon doono halka aadmigu uga digan rogan doono beeraha dhulka ee iminka uu ku dhaqan yahay. wakaalada saaminta hawada sare u qaabilsan Mareykanka ee Maris oo aan iyadu weli faahfaahin dheeraada ka bixin nuurkani lagu arkay beerahaasi ayaa comment ay ku qoreen bagooda internetka ee Twitter-ka ku sheegay in ilaa iyo weli lagu kala aragti duwan yahay oo dood badani ka taagan tahay. isla markaana waxay aragtidaasi Twitter-ka ee NASA lagu tibaaxay in kooxihii ku doodayay in ilayskaasi yahay iscelin reflection lagu guuleystay oo aanay dhulkaasi ka jirin wax fallaadho ah oo hayay xilligii sawirkaasi mishiinku qaadayay. beeraha cas ee Maris oo ah beeraha kooxaha saaminta hawada sare ku howlan sida ugu weyn ugu mashquulsanaayeen sanadihii u dambeeyay waxa dadaal badan dunidu. daraasad cusub oo ay samaysay khubaro ka socotay jaamacadda Exeter British University ee wadankaasi Ingiriiska ayaa waxa lagu ogaaday in kubadda la ciyaaro xilliga caruurnimada ay tahay isla markaasina ay koriso lafaha ilmaha. sidoo kalena khubaro badan oo dhanka caafimaadka ayaa iyaguna waxay cadeeyeen in jimicsiga la sameeyo xilliga caruurnimadu uu faa'iido badan u leeyahay jirka, sidoo kalena uu koriyo carjowda lugaha iyo gamcaha. waxa kale oo intaasi ay ku dareen inuu ka hortago xanuuno badan oo ku dhaca caruurta isla markaasina saameyn badan ku yeesha noloshooda. khabiir kamid ah khubarada daraasadani waday oo u waramayay wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa wadankaasi Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in daraasadani ay ku tijaabiyeen koox caruur ah isla markaasina ay u kala qaybiyeen laba kooxood. caruurtaasi oo daadoodu ay u dhaxayso 12 jir ilaa 14 jir, kuwaasi oo sida uu sheegay ay u kala qaybiyeen laba kooxood. koox kamid ah caruurtaasi ayaa iyagu waxba ciyaarin isla markaasina aan jimicsan, halka kooxda kalena ay jimicsadeen isla markaasina ay kubad ciyaareen. markii daraasadaasi ay dhamaatay waxa uu sheegay inay ogaadeen in caruurta ay saameyn ku yeelato jimicsiga isla markaasina ay ka kori og yihiin caruurta jimicsada kuwaan jimicsan. sidoo kale waxa laf ahaan ay ka dhisan yihiin kuwaasi iska fadhiyay ee aan waxba qabanin. waxa kale oo ay sheegeen khubradani inay ogaadeen in caruurta jimicsiga samaysa ay ka caafimaad badan yihiin kuwa aan samaynin, iyagoo ka badbaada xanuuno badan oo ay ka mid yihiin xanuunada wadna xanuunka, khalkhalka ku yimaada dheecaanada uu jirku soo daayo, xanuunada ku dhaca sanbabada, macdanta oo jirka ka dhamaata. soo deynta macdanta calciumta loo yaqaano ee koritaanka lafaha ka qayb qaadata. dhakhaatiirtani ayaa inta badan kula talisay dhalinyarada in ay sameeyaan jimicsi kala duwan kuwaasi oo ay kaga badbaadi karaan isticmaalka daroogada iyo sidoo kale maandooriyaasha kala duwan iyo in wadku ay noqdaan kuwo dhibaatooyin kala duwan ka geysta caalamka. وهجاج داوديال intaasi waxaan ugu dhamaaday barnaamijkeega xiisaha gaarka xambaarsanaa ee wargeysadii waxyaabaha Quraan oo galabta idinkaga imanayay xarunta dhexe ee Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaana barnaamijkeedin la socodsiinaysay sidoo kalena isku soo dubariday anigoo sagal beel deeqa alaaba barnaamijkeegani waxaan ku soo qaadanaa warbixinaha xiisaha leh iyo sidoo kale kuwa kale oo ku salaysan daraasado cilmiyeysan oo aanu markastaba ku tuhmayno in daawadayaasheedu ay wax badan ka faa'iidi doonaan. dhanka kamarada iyo muuqaalkaasi quruxda badan waxa suura galiyay wayna laantii hawada isku aragneen waa injineer Maxamed Shire. dhanka farsamadu waa anigoo sagal beel deeqa anigii hawlwadeenadii kale ay gala qayb qaatay tabinta barnaamijka anagoo isku duuban
waxaan idin leenahay intaynu kan mid lamida ku kulmi doono isarag baqal dambe xiisa leh